waan xasuustaa weli wixii dhacay 2 sano ka hor sidii shalay oo kale qoyskayga ayaan la casheynayay si lama filaana dagaal baa qarxay qoyskayga iyo aniga ayaan nagula qasbay inaan cararno waxaanu ku kala tagnay wadada waan lumay meel aan aadana ma haysan laakiin ugu dambeyntii waxaan gaaray xero qaxooti waxaa ka soo wareegtay 2 sano welina ma garaneyn meel ay joogaan reerkaygu Yusuf wuxuu aabbahay aan kula hadlay telefoonka way ii xiseen qoyskaygu ima ay iloowin aniga waa is heleen markay dib u midoobeen waqtigaasi waan ogaa meesha ay joogaan laakiin sidaan ugu safri lahaa waxyar kadib waxaan u soo dhawaaday qof aan aqoon isagoo igu codsanaya inaan aamino wuxuu u lahaa dariiqooyinkiisa si uu ii geeyo qoyskayga waan qustay oo waxaan rabay inaan arko qoyskayga sida ugu dhaqsiyaha badan markii dambe waxaa la kulmay islaan da' ah oo iga digtay inaan ninkan aamino wiilkeedu uu rumaystay oo wuu waayay naftiisa wiilkeedu wuxuu damcay inuu aabbihii kula midoobo isla ninkan oo kale ayaa subar qurux badan oo uu u soo gaday aabbihii kaliya in la ogaado runta dadka wax tahriibiya ayaa ahaa kuwo arxan daran oo si xun ula dhaqmeen waxay ku dhufteen marar badan si uu lacag u siiyo laakiin waxba ma uu haysan aabihiis qaar buu soo diray laakiin qaar badan lacagta weligeed kuma filna sida ay wiilkeeda uga digtay ayay ugu digtay waxay iga codsatay in aan la aamini karin dadka wax tahriibiya oo aan wax ka barto khatarka dadkeenii saameeyey waxay ii sheegtay inaan keligay ahayn UNHCR waxay iga caawin kartaa dib u midoobidda qoyskayga waxaan aaday UNHCR maalintii xigtay halkaas waxaan kula kulmay Saara oo ii sharaxay in kasta oo habka dib u midoobidda qoyska uu noqon karo mid dheer haddana ay noqon doonto habka ugu ammaansan ee dib u midaynta waxay igu dhiirigelisay inaan rajo beelin oo aan raadiyo waddo dhaqso leh anigoo dhegaysanaya muqalsiinta iyo kuwa wax tahriibiya habkani wuxuu ahaa khatar biloon badan kadib codsigayga waa la ogolaaday ugu dambayntiina daqiiqadii aan sugayay waxaan saarnaa diyaaradda oo aan dib ula midoobo qoyskayga qoyska midayntiisu waa xaq waddan kasta wuxuu leeyahay shuruudo u gaara oo uu xaq u leeyahay iyo habraaca fududaynta isku keenidda qoyska iyo habraaca fududaynta isku keenidda qoyska qoyskaaga hadday kala maqan tihiin fadlan ka eeg bogga dowladda ee uu qoyskaaga degan yahay bogga UNHCR ee waddankaad degan tahay ama la xiriirto UNHCR ama hay-ad la wadaagsa macluumaad dheeraad u hesho adeegyada dhammaan oo ay ku jiraan kaalmada dib u midaynta qoyska ee UNHCR iyo la howlgalayaasheeda ay bixiyaan waa bilaash qof hadduu kaa codsado lacag ama wax eexsameen ah si aad u hesho adeegyo ku wargeli mid ka mid ah shaqaalaha UNHCR